laakiin aniga warka aan ku farxay markaan warbixinta aan soo duubay warka iga dhex baxay oo igu socdo wuxuu ahaa filimkan Malayalamka ee lagu magacaabo Marco 2 warbixintu waxay leedahay Marco 2 sheekadiisa waa diyaarsantahay wax dhaxa waa maqalnay Marco 2 waa la suubaa Jiyan Fikram ayaa la adarkay Jiyan Fikram hebelo wala dhahay maahane laakiin soo aniga Jiyan Fikram hadda warbixintan ku mujiro laakiinse warkan way cad yahay la yiri directorka filimkan sameeyay Ani Fadani waxa lagu soo warrabaa saaxiibayaal scriptiga qaybtii koowaad in maalkii oo ugu talagalaba oo meel oo ka reebay qaybtii koowaad oo ayna baalka qaybtii koowaad sheekadiisa uu ka reebay ay u qoran tahay meel u taalo waxyaabo yar yar oo bil ama 2 bil ku qaadanayo ayaa wuxuu yiri ii dhimano yiri marka wuxuu yiri Marco hadda aanoo sameeynin oo kaliya oo lagu dhawaaqay in filimkan la sameeynayo ayaa hadda dalabaadka wuxuu ka imaanaa oo yiri aaladaha OTT-ga lagu dalay satellite-ka lagu sii daray dhanka waqooyiga Hindiya iyo Telugu-ga wuxuu dhahay waa labada fan ee filimkan u ooman in ay xuquuqdiisa ay helaan oo waliba af Telugu bahalkii lagu sameeyo waxay dhaheen waqooyiga Hindiyana waxay taagan yihiin af Hindi lagu sameeyo filimka dhankaas iyo Tollywoodkan waxay leeyihiin af Telugu lagu sameeyo laakiin xagee lagu iloobo way afkiisii hooye ee filimka Malayalamka xagee lagu iloobay wuxuu dhahay hadii qarash fara badan la helo oo bahalkii dhil fara badan oo soo baxo waan ku qasbanahay yiri af Telugu af Hindi inaan ku sameeyno laakiinse hadiiba dhilku wuxuu yiri oo san ugu filneen waxaan ku sameynaynaa oo yiri luqadeena af Malayalamka aan ku sameeynaa laakiin waxaan idin xaqiijin karnaa oo yiri in filimkan dalabkiisa cirka sare oo galo yiri hadii OTT-ga ahaa lahayd hadii satellite-ka digitalka iyo baalkii ii sheega dhankaas iyo waqooyiga Hindi iyo Tollywoodka si baan ayaa looga raadinaa ayaa la leeyahay filimkan in xuquuqdiisa la helo saaxiibayaal sidaa darteed marka budget aad u fara badan ayaa qaybtan loo quraa qaybtan labaad filimkan waa la weyneynaa yiri sida hadda directorka uu cadeeyay wuxuu sheegay qaybtan labaad waa la weyneynaa laadaro awood badan oo powerful ayaa lagu soo diri doonaa oo qaybtii koowaad laadarkii la daawaday mid ka daran ayaa lagu soo diri doonaa ayaa la leeyahay saaxiibayaal directorkan wuxuu sii hormariyay shahaadadiisa waa sidii markii hore waa A rated ha ka sugin oo yiri UA certificate ha ka sugin shahaadadiisa A rated waayo yiri ana hore in kugu sii ballan qaada oo yiri marka Marco 2 waxba wadada ku soo jiro ilaa ay haddana waxa waaye waa sugi laana in la soo karkariyaan rabna Marco aan daawanay Marco 2 la deekara waa lagu raaxaysanaabe asxaabi marka mowduuceena maanta halkaas ayuu ku egyahay adikana commentiga igu la soo wadaago waxay fikradiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh